Soomaaliya noolaato Mugabe noolaado Mugabe noolaado iskaashatooyinka maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir Dr. Maxamed Xuseen Mugabe magaciisa xogar waa adaan qaldana waa saxa gudoomiyaha oo ku qaracsana farxadda iga badatay waa igu sabri kariya intaas haduu la raali ka noqdo iyo Baba Goora iyo hay'adda FAO kulli waa maasan gudoomiye saaga waxa mahad weyn oo lagu farxay Mugabe oo iskaashatooyinka lumaysiga oo iyo FAO loo dhaxay daahi u dhaxayeen xaqooday lahaayeen jidadka lagu kala qaadan jiray maanta inuu Mugabe gacanteena oo geliyay gobolka Banaadir uu soo geliyay darajo noo yeeray farxadaasna wax la soo koobi kara maamulada ku horeeyo maamul walba maamul ka wanaagsan ku horeeyna nidaamkooda waa nala fiicnay laakiin Mugabe saaki keenina amalina biyo qaadan ma laga karno banaanku noo yaala waa warax intiimayso marka gudoomiyaha alle waa mahadsan tahay khayr Allah ku siiyo Mugabe magaalada dhan damarino waxay u egtahay magaalo gudoomiye gobol leh warlaamiya jabay Mugabe ka hadlay ninka Mugabe ka hadlay dilay waa isku hurdaaba war kale ma laha hurda ka soo baxayso marka gudoomiyo saakay waxaan kaaga mahad celinaynaa adaan nahay iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee kalluumaysiga dan kulmis la aamin iyo shirkadaha kalluumaysiga sida aad macnaha u tixgelisay iyo sida aad maanta ay rabteen qalabkooda ugu wareejiso ayagana ay ugu farxsan yihiin xafiis gobol Banaadir inay soo galaan iska dhaafay albaabka gobolka xataa macnaha qaabkii aan ku dhimaadno aad ka jirtay maanta ilaahay waxaan uga mahadinaynaa inaan gudoomiye gobolka Mugabe aan ka soo horjeedno iyo Baba Goora iyo hay'adda FAO iyo agaasimaha macnaha kalluumaysiga iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada Cabdicasiis Ismaan Yarow kulligiin waa maasantiin aan leeyahay gudoomiyo Mugabe waxaan aniga aan bal qaadaa haduu la raali ka noqdo hadii aan ahay gudoomiyaha iskaashada dan kulmis hadii doorasho qof coddi la yiraahdo oo gobolka Banaadir loo tartamayo gudoomiyaha ma tiri kara in adiga tahay oo aan codka ku gushabeyn maadaama xuquuqdeena iyo dadnimadeena iyo macnaha bahdilkii hore u jiri jiray oo Soomaanta jirin gudoomiyaashana ay qabaan intaasna aan isdheyn Mugabe maanta ku faani wax cad ay yihiin waadax ay yihiin ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay saqiir iyo kabiir waxaan leenahay gudoomiyaha meesha aad hadda aad gaarsiisay meel ka fiican aan kula sugeynaa marka gudoomiyaha aad u maasantaa Mugabe iyo arrimaha bulshada iyo basiima agaasimo fiican waa noo soo magacaaday hay'adda FAO annagana marka hore daaha noo dhaxeeyay daahina Mugabe naga qaaday alxamdulillah aan dhahno Mugabe waxaan leenahay gudoomiyaha shaqadaada waa ku qanacsan hadii aan iskaashatooyinka cashuuraan soo xareynaa oo gobolka Banaadir aan ku soo xareyno haduu ilaahay raali ka noqdo annagana wax qabadaan sugu jirnay wax qabadkana maanta waa hayna amba hay'adaha ka soo bilowdo amba gobolka Banaadir ha ka soo bilowdo waa kaaga mahad celinaynaa gudoomiye kulliyo kowjar waa maasantaa leeyahay hay'adda FAO waa mahad celinaa FAO muddo badan ay nala shaqeynaysay inay noo dhisto iskaashatooyinka wala badan ay nala qabanaysay ayadana waxaan leenahay waa maasantahay meelay noo soo martay iyo nidaam wax nagu siisay la'eed maanta nidaam waadax aan haysanaa oo annaga iyaga aan loo dhaxeenin waxaana ka shaqeeyay gudoomiye Mugabe iyo basiimo mar dhowna loo soo magacaabay alaabtaan marka hore waa xayirneed waayo wax toos ah loo weysanaaba oo wanaaga wax ku qaybiyaa la weysanay marka alxamdulillah gudoomiyana waa maasan yahay hay'adda FAO waa maasan tahay gobolka Banaadir inaan la shaqeyno diyaar muuna hadaan iskaashatooyinkana war Mugabe inaan garabkiisa taagno diyaar muuna hal heesaan qaadno Soomaaliyeed tooso isku tiirsadaye adbakiina taagdarane taageera waligiine Soomaaliya noolaato Mugabe noolaado garabkiina Allah ka wadi kana shaqeysta adeegga dhamaysbaas waa sida durduraan ku hay taasoo ka dhigan inuu yahay isku xiraha joogtada ee aan hakadka lahayn xirmada toddobaadlaha adeegga dhamaysbaas waxaa kugu dhan internet xawaarihiisa la hubo iyo ku hadlaan xadidnayn oo ay ku dheertahay IPTV dhamaysbaas waa mid aan kala gool lahayn oo kuu fududaynaya inaad la xiriirto adduunka oo dhan ku shubo kaliya 425 senti kuna isticmaal internet iyo ku hadal muddo 7 waxaana ku dheer nashaad IPTV oo ah isku xiraha madadaalada casriga uga shubay dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal afargees dhamays xawaare sare isku halayn joogta iyo adeeg ka tarjumaya baahiyahaaga casriga